تحديات كان الداخلي وقوة وحكاس قبيل وحبائي كسعون ويا دولة لماذا الصومالية ويسوي مادان maxay qaadaan Soomaaliya ay toosoo dhawaatay way ooyaan shirarkooda waxa sareysa war wallahi waa kan ilaahay soo hadeeyay abaar markay ooyaan bay istooranayaan oo qolo fanaaniin gabaydo oo heesa la tiriyo calan la wado oo ay kala sameey ayaa dawlad la doortaa dawladda markii hore la dooranay reer waliba wuxuu isleeyahay ama madaxweynaha heli ama ra'iisul wasaaraha heli ama kanbaad heli de qolo ma soo baxaysa qolo markay soo baxdo inta dambe waxay dhahan waryaade nimankii reer hebel baa meesha qabsadeen yay nagu dawladoobin hadaba caga haya afartiisa sano caguun baa la hayaa in reer hebel baa laga ilaalinaya magaca iyo maamulka iyo maamuska afar sano markaynu halkii u taaganahay ayuun baa hadana heesii dib loo qaadaa Soomaaliya toos waa kii shirkii 20aad bay noor muumad 20 goor shirtaad aragtay waan dawladu u dhalanaynin كيف يمكن اذا ما ها مساله مينا شرين ما ها مينا دولة سمين ما ها waxa مسألة waxa weeyaan cultural revolution baynu u baahanay waxaynu u baahanay dhaqan bedel waa leeyna dhaqan bedel umad suldaankeedu qayelayo madaxweynaheedu qayelayo maamuuskeedu qayelayo wada muqaddara umad qof waliba wuxuu soo gaaro oo xadayo umad qof waliba wax kasta uu qaadanayo inteeda badani ma jirto waxaad tiiriyadana dawladda hal qaqayga wax lagu oranay maxaa dawladda uga qayb gal wadaadada maxay kaydinku ahlu taqwaysan hadii madaxweyne laga dhigo wax isbedel maayaan way dawladnimadu waa ummad nin maaha qof iyo laba iyo saddex maaha waa ummad fikrad rumaysatay oo wax qaadatay oo ku socota hadaan taasi jirin qof iyo laba iyo saddex iyo ka ugu daacadsan hadii la geeyo huwa intii kala caga haysa muxuu sameeynaya reer hebelun buu noqonayaa sumadaas u yeelanaya markuu meesha tagay reer hebeladii kalena waxay leeyna caga hayday kugu dawladoobine marka ayuha alhibba waxay leeyna waxaan u baahanahay ضعف الوعي العام باجرا aqoonyahanku waa qofka bedela bay yiraahdaan waa sunnaa'u ar-ra'y waa dadka bedela uquusha ummadda oo waa maxay ummaddu uquusheeda waa la bedelaa sida wuxuu aragtay waa laga bedelaa mashaakilkuna guduhu ka yimaada ilaahay wuxuu leeyahay laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لبضنا آيات اسكحيان في سورة آل عمران إلهي وحلي دتك مؤمنين تا إلهي وحيدون كل الله ضيستي دتك مؤمنين تا ربي وحو كن معيستي وكل الله ضيستي رسول إيجا كمدا وإلهي آيات كيس كد الأخرين إياه وتزكية نفتو ذا ربين يحمها كطاهر ياليه وكتابك يا حكمة دبرية إنكستو أي مركي هو ردد باضية هاي إذا منهج صحبة إلى هيدي سيبا للي لكن هذا منهج كوي عطان محاد عيا واتشبيسان مع منهج صحة هاي ستي هذا راعي ويدو يعني نولش إلهي وحط الماما يا سنن ذرس اللو قانون باكرا إلهي نولش ودتشيي وهذا كصحة مرتنا تقولي سنيسو هذا كقلدان مرتنا أتشبيسو سادرات الله آياتك حكتي إلهي وحليه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مركي أيدن على شيء بلايو دب إياكو باها دتك كلا مثل مدى قارسيسين أيها واحد قلت من هذا كيف هذا سوى كانوا دعي صانوا تشبنا من المؤمنين هين إلهي وحكو شواب قل هو من عند أنفسكم إذنكم بدكم يدكيم إذنكم بدكم يدكيم إذا كنا بدكم يدهي معناه دوا محي فحلا ليه خالد با حريفة إيو عد با نتشبيسي وحسوا مرمرسيو عيبت هذا هنا عد كلا دوشة كسار توا مرمرسيو إثيوبيا نتشبيسي كينيا نتشبيسي مجتمع الدولي قابا نتشبيي وروح حسوا مرمرسيو دولي دولي دا يبقى يسري حيسي إثيوبيا هذا ما دالانين كينيا هذا ما دالانين maraykanku hadda ma dhalanay markaad jirtayba kuwaniba way jireen haddii qofka difaaciisu jabo مثلا xanuunkan AIDS-ka la yidhaha waa maxay soo maaha
difaacii jidhka ilaahay jidhka difaac buu siiyey heegana oo wax kastoo soo galo weerar ku qaadaya difaacaasi oo le bay yidhaahdaan gantaalo leh oo basaasiin leh oo kan leh waa difaac dhammaystiran qaab ciidan u dagaalama markaad white blood cellska iyo say u dagaalgalaan waa qaab ciidan bay u dhisan yihiin wax kastoo weeraroo dabad kaga yimaada virus ha noqdo maxaa la yidhaahdaa bacteria ha noqdo fungus ana wuxuu doonaya ha noqdo wuu difaacaa jidhka haddii difaacaagaasi burburo wax kastaaba way ku dilayaan inaad duray u dhimataa bay u badantay sida caadiga miyaynu naqaano qof duray u dhintaa haddii difaacu jabo wax waliba waxay yidhaahdaan bacteriyaadkaaga bacteria jirta jidhka ku jirta oo markuu difaacaagu soo jeedo ogol mabdaa tacaayush silmi inay nabad kugula noolaato waxba ku yeelaynin laakiin hadday aragtay difaacaaga oo seexday cid dabadeedba uma baahnid bay leeyihiin inta kugu jirtaa weerarka qaadaysa then you will be on bed sariirta waa inaad markaa lagu saaraa markii innaga difaaceenu jabay manaacadeenu jabtay dee cid walo kaleba way ka faa'iidaysanaysaa idan eeddu ma aha dadka dabaddu maxay waxaa noogu sameeyeen dadka dabadda ilow eeddu waa adiga adigu haddaad bini aadam lagu xisaabtama noqoto qofka kalena uu xisaabtamaya maxaa qofkan mari kara maxaanse mari karin haddaad see noqoto qof la iibsan karo dee waa lagu gadanaya dhulka daaya dadkaa la gadanaya dee soo imikaba dadkeennii laguma kala gato libiya iyo meelaha dadkeennaa la gataa dhulkeennaa la gataa xoolaheennaa la gataa wixeen oo dhan baa iiba idan waxaan u baahanay ayuha alaxiba manaahijtu maaha waxay naga qaldamay waa ku dhaqankii waxay naga qaldamay waa cultureka aynu hadda qaadanay waxay naga qaldamay waa saynu u fakerayno haddaba su-aashii ahayd maxaa cilmigaygu wax u tari waayey dee cilmigu hadduu suluuk isu bedeliyo dhaqanna waxbuu taraa hadduu theory yahayna dee kama gedisna kaa recordada ku jira ka internetka ku jira maskaxdaaduna waa nooc wax record gareeyo wuxuumaad noqoto in hal cajiladaa lagu biiriyo wax lagu record gareeyo hal meeloo wax lagu kaydiyo ayuumaad ka mid noqotay waxoogaa theories iyo waxoogaa aqoona lagu kaydiyey haddii aanay mar dhaqan noqonayno bini aadamnimadu waa markaad dhaqanka u bedesho waa markuu behavior noqdo waa markuu dhaqan iyo akhlaaq noqdo waa markuu isbedel keeno marka ayuha alaxiba waxbaa baranaysaa si fiican wax u barta weeleeya cilmiga naqdiya oo critical analysis ku sameeya si fiican wax u barta waddankii markaad tagtaanna dad wax cusub soo kordhinaya oo isbedel bulshada ku sameynaya noqda isbedelka rasmigina wuxuu ka bilaabma naftaada haddii adiga diintaada iyo caqiidadaada iyo dhaqankaaga iyo qaab nololeedkaagu isbedelo dan leadership attitude baad leedahay dadkana waad bedeli kartaa markaa haddaad si adigu bahal wuxuu soo gaadhaba cunaya tahay nin reer hebelaa tahay oo reeraha kale iska celinaya intii dee xaggaa lagu hayay uun balaswan uun haddaad noqonaysana maa fi faa'ida halkeedii baa la joogaya adiga iyo adeerada iyo awowyadaaba si unba u jabnaanaysaa si unbaana loo sii hoos maraya waxaynu isugu faano markaynu reeraha nahayna waxa weeyaan reer hebel iyagaa iga dhimasho badan maaha annaga ka nolol badan waa boqol baanu ka dilay yar toban bay naga dileen dhowrkii dagaalaanu gallay dee maxaad kordhisay waa 110 nin oo soomaaliyeed umada aakhira qabadsiiseen adna wax ma taransan isna wax ma tarin inaad nin soomaaliyeed aakhira u dirtaa wax tar kuma aha maaha waxaad soo kordhisay maaha wax tar maaha idan nooca ayaynan u fakerin ee nooca ah inaynu wax kordhin karno oo caqli keeni karno oo aqoon keeni karno oo ummaddan kor u qaadi karno aan dib uga fakarno wasala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin جزاه الله خيرا وبارك الله فيه شيخنا شيخ مصطفى الله سبحانه وتعالى كأبا مريم ميزان حسناته أوية هذا لها قيمها بضن وضمانتنا نبهنا
sheekha waxaan isdhahaya inay xoogaa intaa ka badan waayo hadalkiisa kama daalay saan sheegnay habeen horena waxaa weeye khibro aruurtay iyo cilmi aruuray oo isku tegay waxaan ku qaadanaynaa nusaac